amarkii markaan kaaramarna soo istaagnay waa la soo galay gaarigii waana loo yimi nin ila soo fuula halkan saaran asaga inta ka mid kale xagga naga saaran indhaxyaga la eegay saasa loo eegay caadiyan u eegay asaga la kacay iyo nin axaro intiga fadhiyay labadoodii la degay kaaramarna lagu la degay markuu sii degayaan ku iri baasaboorkii ma la soo baxaa aan diyaariyo anna waa la iimaanayaa markaasuu gadaal ii soo igu yiri afkaaga qabso hana hadlin waxa igu yaab badan dadku waa qaylinaya halkan hadda sidii Hargeysa kale noqoto dadku xor u dareemaya wuxuu doono ku hadlaya dadka maamulka la dhaleelaya madaxweynaha wax laga sheegay anoo joogo halkan hoteeladii jeel ogaadeen ma waa jeelal ogaadeen singular ma waa plural asagiya kala duwan Soomaali maanta way jabtay laakiin dib u soo kabatay guud ahaan meel joogto aqoon ahaan waa kabatay oo dad mutacallimiin oo ka aqoon badan amxaaro iyo Tigray kulliya soo baxay dhaqaalaana waa kabatay meeshay maanta ka liidato ugu xunta waa hogaanka in loo soo bas hogaan wanaagsan hadii hesho waa dhamaatay Soomaali geeska Afrika ayada xukumaysa hadii ilaahay 5 sano horteedana mid waagi ma taliska hore tilinayaan mid Cabdi Maxamed Cumar marka waa soo gali kari waayay deegaanka waxaana guud ahaanba Itoobiya si guudba oo tiba ilaftu waagi dadka rafaadinaysa ahayd iyo deegaanka ba soo gali lahaa hay'adaha xuquuqda aadanaha marka anigoo ka wakiilan soo gala hal maalin oo nin eedaday maama eedaday dhashay oo deegaanka mar wasiir ka soo noqday dadka deegaanka halkan ayaa la soo hadlayay oo lahaa idamiino adsaban kala soo hadlayay adisaba anoo jooga oo shir jaamacadda King's College London ay qabatay ka soo qayb galay oo rabo fursadaas inaan uga faa'iideysto inaan deegaanka imaado ayaan la hadlayay oo iga lahaa hayman war ha isku soo galin naftaada hadaad doonayso marka harran dir dhamaan imid adan harran kala soo hadlayay habeen walba aan soo galo ayaan lahaa asaguna wuxuu iga lahaa hayman markii dambe aan ku irdeeynin wax adduunku weydiiyanahay warbixinada caalamka xuquuqda aadanaha kulli wareystaan wax weydiiyaan xaaladaha Soomaalida deegaanada dhan ka jira marka deegaanaan arag maalin walba hadii wax laga weydiiyo waa dhibaato bal aan indhayga wixii ku arko sidii yiri iskaga soo gal marka harran ka soo baxay subax salaad subax waxa ila socdaan in magaalada Jigjiga u dhashay soo yar ka tagay la xamar ku koray oo reer Jigjiga asal ah laakiin Germany degay oo gabar Jarmal uu qabo iyo dumashiisu wata marka aniga habeenkii salaad raacna har dhaxdeedii marka waxaan ku heshiinay haaska iyo gabadha dumashiisa meesha roon uga tago because ma soo gali karaan waana ugu dad horumar u wada gobolka oo raba inay wax caawiyaan cabsiina la soo gali laayeen in lagu dhibaateeyo marka asaga soo raacay markaan baabil soo dhaafnay bas ka caadiga kan yaraan saaranahay kan weyn ma mid ka yara dheereey markaas uu yiri lahjadan aad ku hadlaysaa lagu qabanayaa maanta markaan marayna kaana marna markaas aan lahjadan waa bedelanaya maanta أنا حمر كل شيء أبهنا كل شيء أوجين الدي وكل شيء كي أوجين على كي مدك لكن لهجة مدك كل شيء صار الله وانا يا بعير سير لو وقع تأوكا وغيبر صومالي عمل أن أجل دونا عير سيسن إيه كمان لو حلو إذن يوري نتاي شباب لهجة أنا دلوقتي يعني حمر كي بدنا مرك لهجة إلهي أمر كي مركان كهرب مرة سو استغني والله سوق على كاري وأنا لو يمي لين إلا صف ولا هل كان صارن asaga inta ka mid kale xagga naga saaran indhaxyaga la eegay saasa loo eegay caadiyan u eegay asaga la kacay iyo nin axaro intiga fadhiyay labadoodii la degay kaaramarna lagu la degay markuu sii degayaan ku iri baasaboorkii ma la soo baxaa aan diyaariyo anna waa la iimaanayaa markaasuu gadaal ii soo igu yiri afkaaga qabso hana hadlin waana degay muddo haysteen waa soo daayeen ala kulli xal markii dambe laakiin amarkii la sii hareen asaga waa lagu soo celiyay saasan magaalada ku soo galay markaan soo galay waxaan jooga magaalada muddo adiga 12 saac amal meeshii ugu horeen ka bilaabay oo aan ku iri ninkii qarabada aan haynigee waxay ahayd xarunta hore SYL 1948 oo teeleegan Jigjiga agteeda ku taal meeshii aan tago sawir ka qaatay baabuurkan ka dhex sawiraya ma dii kara daan deg waa la qabanaya maxaa u sawirtaa leeyahay meeshii SYL deganayd 48 oo nin Ingiriis lagu dilay intuu yiri calanka dejiye oo dagaal ka dhacay soo booqday isku soo sawiray sawirkan ka qaatay isku sawiray meel dhawaan isku sawiray si xor ah waxaan tagay oo kale ayadana aan eegay meelo kale oo iska taariikhi ah magaalada sida Taalada Sayidka oo kale jaamacadda Jigjiga koran ka eegay ma ka degan gaaray meel walba marna magaalada security ahayd goolad walba ilo walba laba nin askar oo hub wata FD marka meelahaas aan marmaray saan u wareegay oo meelihii aan marba meel aan u baahnaa oo iska taariikhi u raadsanay
iyo meelihii jigjiga ka bilaabatay ayaan eri markii dambe bal caawa hotel aan degay igey wuxuu yiri kuma geen kara anoo lagu xiri anoo la xiri waa nin engineer oo wasiirka waxbarashada noqday wasiirka howlaha guud oo noqday deegaankan madaxu ka jir laakiin markaas systemku kuma jiro oo asaga yaaba 12 jeer la xiray oo lagu tuuraa maalin aan weydiiyay gadaashay maalintaan imid kadib ma lagu xiray ma igu yiri laakiin marka baxdo dadku u sheego ingiriis aan magaalada keenoo baxay ayay igu yiraahdeen dadka xaq ah lagu gulay in lagu xiro hadiiba aad dadka noocaas oo gobolka wax ka qoray soo gelinaysa meesha marka gurigeygana kuma geen karo yiri hotelna kuma geen karo lafaha kala baxsan sidii aan harar ugu noqday marka inaan jigjiga ka baxo dhulkii kale Soomaali galbeed tagay iska daayay magaaladii aan waaga joogi kari waayay marka hadda xaaladdu waa u jeedaa isbedel badan muuqda xorriyadda dadku waa hadlayaa waxa igu yaab badan dadku waa qaylinaya halkan hadda sidii Hargeysa kale noqoto dadku xor u dareemaya wuxuu doono ku hadlaya dadka maamulka la dhaleelaya madaxweynaha wax laga sheegay anoo joogo halkan hoteeladii magaaladii dadka caadiga u tagaa dhax galaa eedu waa iska socotaa Soomaali xornimo heshay waa taqaan ma joojinayso dad xorriyadda jecel way oo egalitarian ah oo qof walba raba inuu mowqifkiisa cadeeyo asoon cabsanayn marka jeeloogadin waa tagay hay'adaha xuquuqda aadanaha wax badan ay ka hadleen annagana ribooradii la qoray wax badan ku turbiid gareena waaga oo aniga waa imid waaga maalinta imid dad badan iyo waxaan la hadlay inkaas dadku baqayay dhagaha iskala hadlayay qaarkood oo masaajidada xataa lagu hadli kari way dadku baqay laakiin intaan la hadli karaa la hadlay hal maalin oo dhan ku jirna jeeloogadeen diwaana wada soconay wataan aniga adii wada soconay meeshii dadku ay warameen meesha maxayay dadka ku jiray waatay qaarna la socdeen jeelasha waataan eegnay jeel ogaadeenka waxaan ogaaday oo aan faa'iiday oo aan ku arag warbixinada xuquuqda aadanaha qoraan inuu asaga kala qayb leeyahay asaga qayb kala leh jeel ogaadeen ma waa jeelal ogaadeen singular ma waa plural asagiya kala duwan qayb boosaneer oo dhulka dadka la gelinayo qayb qofka kaligii la istaajinayo solitary confinement oo san leexan karin qayb laba qof la isku cariirinayo afar qof qayb la isgelinayo bahal la jaray afka laga jaray oo fostooyin aad moodo dadka lagu xabisayo iyo qayb kale oo aan isri Cabdi Maxamed Umar maamulkiisa waxay ugu talagaleen dadka ama asaga maamulkiisa madaxda ka ahaa in xogaa lagu yarahayo oo sharxan sariiro leh asaga kala duwan mugtay marka imagination anaga aan ka haysanay markii hore hay'adaha xuquuqda aadanaha ilaa iyagu ma tagin wax loo sheegay qorayeen laakiin qofka taga hal holo wixii lagu wada jiray iyo hal meel ah laakiin asaga qaybta dumarka taa wataan tagnay oo eegaynay asaga kala duwan marka jeel ogaadeen wuxuu u baahan yahay in laga dhigo museum dad ku tusaale qaato wixii dhacay mar dambe si soo noqon ilaahay ka rajaynaa inaan deegaanka dhibkii dhacay TPLF ka geysata anagu ma lihin Cabdi Umar maamulkiisi waxa geystay Cabdi Umar maamulkiisi instrument la isticmaalay ahaayeen si Soomaalinimada loo adkeeyo dadkan aan qabiil loogu kala qaybin oo loo arag waxaan dhacay in qabiil ay ku dhaceen qabiilna lagu dumilmay waa inaan u aragnaa waxaan talis Itoobiya guud ahaan qabsaday oo umada duuleysanaya sameeyay dad Soomaali oo annaga nala mid ahayna ku shaqeeyeen hawshan qabtay dhahan kii harar haysto generaalka ayaan 2007 alifay istaraatiijiyadu dajiyay kamid ahayd lana meel mariyay markii Chinese-ka shidaalkiisa la weeraray meesha Chinese-ka lagu laayo maalin ayadana aan tagay su'aasheeda ugu dambaysa professor Maxamed Ingiriis hal laga baran karaa dadka Soomaalidu maxay ka baran karaan dhibaatooyinka deegaanka Soomaaliyeed tobankii sano almost 10 sano haystay maxay ka baran karaan si aan noocyo kale aan soo marin waxa ugu weyn oo laga baran karaa waxay tahay ummad la cabiidiyo oo la dulaysto oo la laayo la xasuuqo dad ayagoo nool la duugo sida gobolada qaar dadkii ay ka sheekeynayaan inaanay faa'iidada iyo consequence-ga ay keenaysaa inaysan in ummadan dulaysato iska haysato oo marka ugu dambaysa qof ku waxa sameynay ay jeelal iyo meel xun ku dambeyn doonaan iyo calool xumo ee loo baahan yahay Soomaali dhaqankeedii in dib loogu laabto ee isku xukumi jirto waa compromise ninkii dawaato maamahay murtada badnaa Soomaalida wuxuu yiri rag wax kasta waa ku dayay walaalow ku dhaaf wuxuu ku dhaamalawaa qofka Soomaaliga maanta aad tiraado dagaal igu diyaar garow qof walba waa diyaar inuu iscuntaan oo dhagaha isgoosataan oo isha iskala baxdaan laakiin waxa ka sharaf badan inaad tiraado walaalow qof isugu darantiina Soomaaliya hadaad tiraado walaalow waa dhamaatay meeshaas ku ageeyay wixii isu qabteen waa soo calool faybaanisan marka casharkan ka baranayna waxay tahay in si Soomaalinimo lagu shaqeeyo la iswalaashado qowmiyadda Soomaalidu waxay dhaxgalaysaa oo ku dhex jirtaa maanta qowmiyado ka sii balaaran oo Itoobiya dhexdeeda ama geeska Afrika ah waxa ay ama la shirtagayso ama ay wax kula qabsanayso ama ay kula shirkoobayso ama ay xuduud kula yeelanayso waa inay magaca Soomaaliyeed oo is aruursaday ay noqdaan oo Soomaali marka la rabo in la kala qaybiyo ama la dhibaateeyo sida kaliya meesha loo isticmaalayo waxay tahay in qabiil lagu kala qaybiyo
oo maamulkan ka horeeyay waxa laga dhigay inuu qabiil gooni ceyrsanayo ama jilbiyo gooni ceyrsanayo waxa u daneynayna ay jilbiyo gooni tahay taas Soomaalida laga dhaadhiyay laakiin wax sax ma ahayn meesha ay ka liidato ama meesha ay cilada ka haysato ama meesha ay ka dhaawacantaa boogteedii ayaa la qodqodanayay waxa in boogta la dhayaal rabaa hor loo socdo oo gobolka Geeska Afrika Soomaali maanta way jabtay laakiin dib ay u soo kabatay guud ahaan meel joogto aqoon ahaanna waa kabatay oo dad mutacalimiin oo ka aqoon badan amxaaro iyo Tigray ay kulliya soo baxay dhaqaalaana waa kabatay meeshay maanta ka liidato ugu xunta waa hoggaanka in loo socdo bas hoggaan wanaagsan hadday hesho waa dhamaatay Soomaali Geeska Afrika ayada xukumaysa hadii ilaahay aad ma santahay professor Maxamed Xuseen Idriis أنا آدم كوب حسن عني معن آدم حسن